waxaan nahay wahdiga dugsiyada dadkii ugu horeeyay ee deganaa dadkii ugu horeeyay ee degay Eritrea waxa la rumaysan yahay inay ka yimaadeen dooxada webiga Niil ee ku taala Marabsat dadkii ugu horeeyay ee Eritrea soo dega ee magaalada waxa la rumaysan yahay loo maleynayaa sida lagu badinayo inay ka yimaadeen ama ay ka soo guureen ama ay ka yimaadeen asalkooda hore dooxada webiga Niil ee ku taala Marabsat dooxada webiga Niil waxay ognahay inuu had iyo jeer wadamada Afrikada geeska Afrika Eritrea Suudaan wadamadaas oo dhan maro marka dooxooyinka ka soo dilaaca webiga ee ku yaala Marabsat oo joogiisu hooseeyo haween Marabsat waa taageer oo jeexa hoos maro oo joogiisu hooseeyo muddo sana ayay naylaataga kushitiga iyo sabatiga dadka ku hadlaa ay yimaadeen Eritrea muddo sanadood ama sanado badan oo dheer fog ah ayay dadka ku hadlaa afka kushitiga naylotiga iyo sabatigu ay Eritrea soo degeen ama ay ku soo kordhayeen maalinta ka dambaysa Eritrea waxay ka mid tahay gobolladii ugu horeeyay ee beeray dalagyada kala duwan iyo dhaqashada xoolaha ee Afrika Eritrea waxay ka mid tahay wadamadii ama dalalkii ay ka hirgashay ama beeray dalagyada kala duwan ugu horeeyay dalagyada kala duwan beera dhaqashada xoolahana ay ka hirgasho oo si wacan xoolaha looga dhaqo beeraha looga shaqaysto 3,000 oo sano ciisoodkii waxay xiriir ganacsi la lahayd dibadda dalka Eritrea muddo laga joogo 3,000 oo sanadood ciisoodkii waliba waxay xiriir la lahaayeen dalalka dibadda ee Afrika dibadda ka Eritrea waxay ka mid ahay boqortooyadii hore ee Ethiopia ay ka mid ahaan jirtay ama waxay markii asalkeedii hore Ethiopia ka mid ahaa Eritrea ka mid ahaa dadkeedu boqortooyadii hore ee Ethiopia ee Aksum meeshii loo jiray Aksum deganaan jirtay ayay ka mid ahaayeen qarnigii 16aad waxaa ku darsamay maamulkii Cusmaaniyiinta waxaa ku darsamay markii la joogay qarnigii 16aad waxay isku biireen ama ku darsamay maamulkii Cusmaaniyiinta ee Turkiga imaanshihii Talyaaniga ee xeebta Eritrea wuxuu bilaabay kadib furitaankii gacanka Suez imaankii Talyaanigu yimid xeebaha Eritrea wadanka Talyaaniga ayaa yimid Ingiriiska ayaa yimid wadamo badan ayaa isaga dambeeyay Talyaanigu waxa uu xeebaha Eritrea yimid ama uu bilaabay imaankiisu furitaankii gacanka Suez gacanka Suez waa gacanka waddanka Masar mara waxaana soo maray markii la furay gacankaas wuxuu ka yimaadaa badda cad iyo wuxuu isku xidhaa badda cas markii gacanka la furay ee Talyaanigu yimid dalka Eritrea 1969 gacanka Suez waxaa la furay 1869 markaas ayaana Talyaanigu yimid Eritrea Talyaanigu wuxuu doonayay inuu ka qayb qaato qabsashadii geeska Afrika markuu imanayay Eritrea wuxuu doonayay inuu socday Eritrea oo ma ahayn ama Eritrea inuu joogo ma ahayn wuxuu doonayay inuu ka qayb qaato qabsashadii la qabsanayay qaaradda Afrika markii la qabsanayay ama inuu ka qayb qaato gumaysigii qaaradda Afrika la gumaysanayay sanadkii 1968 ayaa Talyaanigu iibsaday dekada Casab ee ku taala dalka Eritrea ayuu iibsaday 1968 ayuu dekadaas iibsaday 1970 Talyaaniga ayaa qaatay dekada Musawac hadda ka hor markii ka soo horeysay ayuu wuxuu qaatay dekada la yiraahdo Musawac oo ku taala dalka Eritrea isagoo dekadaha u qabsanayay si uu uga soo degi lahaa xeebta dabadeetana ugu gudbi lahaa dalalka kale ee Afrika ku yaala sanadkii 1990 Eritrea waxay noqotay
mustacmarada talyaaniga wuxuu xukumo sideed boqol iyo sagaashankii Eritrea waxay noqotay mustacmarada talyaaniga sida maaliba dekada qabsanaya maaliba meel uga soo degayay wuxuu noqday meel uu isagu maamulo maamulkii talyaaniga wuxuu dhammaaday ee Eritrea wuxuu dhammaaday ama wuxuu ka tegey dagaalkii labaad ee adduunka markii uu talyaanigu galay dagaalkii labaad ee adduunka isku hayn kari waayey Afrika iyo dagaalkii Yurub ka socday isku kari waayey markaas ayuu ka guuray ama markaas ayaa laga saaray waxaa ka saaray markii ay ciidamada Ingiriisku qabsadeen Eritrea waxaa qabsaday oo ka saaray markii uu isagu guuray inuu dagaalkiisa Yurub ka qayb galo waxaa soo doomaray oo meeshiiba ka qabsaday dalka Ingiriiska oo isaguna markaa soo degay Eritrea maxkamiyadda Ingiriiska ilaaliya ayay Eritrea noqotay maxkamiyad ama meel Ingiriisku qabsado ilaashado ayay noqotay 1941 ayay waxay noqotay Eritrea meel Ingiriisku ilaashado oo wadamada kale ee Yurub oo dhan uu ka ilaashado maamulka Ingiriisku wuxuu ka bilaabay 1941 wuxuu socday ilaa 1952 wuxuu ka bilaabay 1941 wuxuuna socday ilaa 1952 ayuu socday intaas oo dhan waxay haystay oo dusha ka haystay oo ilaashanayay dalka Ingiriiska ururka qaramada midoobay ayaa go'aansaday in Eritrea ka mid noqoto maamulka federaalka ee Itoobiya markaa kadib ayaa ururka qaramada midoobay oo markii hore markii uu ogolaaday madaxbannaanidiisa ayaa wuxuu ku daray ama wuxuu u ogolaaday inay ka mid noqoto maamulka federaalka ee Itoobiya 1952 ayaa markaa qaramada midoobay ay ku dareen Itoobiya ama maamul goboleedyada ama federaalka Itoobiya Eritrea waxaa laga dhigay gobol ka mid ah Itoobiya 1952 markaas waxaa lagu daray Itoobiya waxay noqotay gobol Itoobiya ka mid ah halkaas oo ay dagaalo badan ku dhex mareen iyaga iyo Itoobiya muddo badanna soo gaadhay oo dhawaanba soo gaadhay dagaalkoodii halkaana ka bilaabantay colaadii labada dal u dhexaysay casharkeena waxaa ka helaysaan bogga 8 iyo 9 ayaa ka helaysaan buuggiina cilmiga bulshada ee aad akhrisataan markaa waa inaa casharada si fiican usoo akhridaan lana socotaan